وعدها قوليستو وعدها قوليستو وعدها قوليستو فيصل علي حسين مشرح مدحوينو هقوليستو مشرح مدحوينه كحيجاكم مستر أبين هقوليستو إذا كنا قوليستا ولا ليال أنكو إذا كان هاي إذا كنا نجاتهين إنكنا وعد بنا هاي وعدنا وسومال الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال إلهي بام هذا إسكاله ساك هالكن سكو كاني كوبي الله باتنكي بيشن أولو أستيي maalintii munaasabadaha iyo fagaarayaasha ay u bilaabmaysay xisbiyada qaranka Soomaaliland markii ay u qori tooreen xisbiyada komishanka doorashooyinka qaranku waxa dhacday in maalintii koobaad ay u soo baxday xisbiga UCID sidaan ugu guuleysanay ayaan ugu guuleysan doonaa doorashadana walaalayaal sawtaa diyaaru manihin walaalayaal waxaan idin sheegayaa maalintan waa maalin weyn waxaad arkayseen habeenkii dhaweeyta doodii la qabtay oo 7 milyan oo gudaha Soomaaliland iyo daafaha dunida ku dhaqani ay daawanayeen sidii farshaxanimada lahayd ee xaragada lahayd ee uga soo mudhiyay ee ugu guuleystay gudoomiyaha ahna musharaxa madaxweynaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe way quusteen habeenkii dhaweeytay inay ku wareejiyaan ay tanaasulaan un bay ahayd xalay toolana waxaad arkayseen saddexdii musharax madaxweyne ku xigeen doodii loo qabtay iyadana halkii hal lamida inuu dhigay musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID Master Abiyan guushi UCID sidaasay ku raacday waxa la kala dooranayaana waa Faysal iyo Muuse iyo Cirro boorama kuma tartamayaan Faysal iyo madaxweyne ku xigeen saddexdaan nin baa ku tartamaysa saddexdaan nin baynu kala dooran doonaa waxa walaalayaal inii sheegaya ma shalay toona waxaad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkii uu joogay ee uu ciidamadii qaranka joogay daraato shalay toolana uu khaatumo la joogay oo halkaasi ay ku soo afjarantay khilaafkii Soomaaliland iyo khaatumo u dhaxeeyay waanu bogaadinaynaa xisbi ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo Soomaaliland u dhameystiray xisbi ahaan waan soo dhaweynaynaa laakiin Muuse tiisi maaha Muuse Faysal buu la siman yahay iyo Cirro la siman yahay guulaha xukuumadan Muuse ma sheegan karo Siraaya sheegan kara waana ugu mahadnaqaynaa ninka garab taagnaa in khaatumo ay timaadana waa musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo shalay toolo uu madaxweynuhu caynaba uu ku gudoonsiiyay shahaada sharaf halka labada musharaxee kale ay Hargeysa ka joogeen Faysal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland buu garab taagnaa in Soomaaliland dhameystiranto ayuu ku garab galay wuxuu sheegay musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye daraad markuu taageerayaashiisa la hadlayay inuu campaign-ka ka bilaabayo caasimadda Soomaaliland halka Faysal uu sheegay in halkii Soomaaliland lagu aasaaso Burca uu ka bilaabayo labada nisaas oo kala duwan yihiin ninna Hargeysa ugu joogtaa ninna waxay ugu joogtaa qaranka Soomaaliland waa Faysal guushana Faysal inaad maanta siisiin oo ku raacdin baanu doonaynaa walaalayaal waxaan ugu baaqaynaa komishanka qaranka iyo gudida anshaxa saaka anigu Hargeysa ka soo baxay waxaan inii sheegayaa in xisbiga kulmiye oo xalay goobo kamid caasimadda Hargeysa ku taxay calanadii kulmiye iyagoon maanta u lahayn gudida anshaxa waxaanu ka codsanaynaa iyo komishanka qaranku inay maanta tallaabo degdeg qaadaan haddii kala maalmaha kalena wayna sugaysaa taasna waxaan leenahay waanu ku kalsoonahay komishanka hawsha ay hayaan inay tallaabo cad ka qaadaan walaalayaal sidii hadda gudoomiye inoo sheegayay qabyaaladii way xarka goosatay xisbiga UCID wuxuu rabaa Soomaaliland oo isku dhanbu wax ka rabaa suldaan cimaamad qaatay ma rabo Soomaaliland madax dhaqameedku sharaf iyo cizi bay ku lahaayeen waa ragii dhidibada u taagay laakiin waxa bedelay suldaan fadlan ku shuba ah ayaa bedelay kaana waan diidaynaa waxaan leenahay suldaan Biribad ma rabno madax dhaqameedku Soomaaliland sharaf bay lahaayeen inay sharaftoodii ku soo noqdaan ayaan doonaynaa walaalayaal oo karaamadooda ilaashadaan oo wada jirka ummadda ilaashadaan walaalayaal waxay niga codsanaynaa inaad sidaa codkiina maalinta 13 November UCID ku siisaan UCID ha guuleysato UCID ha guuleysato UCID ha guuleysato Soomaaliland ha guuleysato walaalayaal taageerayaasha xisbiga UCID waxaan ugu baaqaynaa meel kasto ay joogaan
inay qarannimada Soomaaliland ilaaliyaan inay nabadgelyada ilaaliyaan inay ciidamada qaranku meel kastoo joogaan nabadda gacan ku siiyaan inagu xisbi nabadeed baan nahay xisbi qaran baynu nahay waa xisbiyadii ugu daada weynaa Soomaaliland ee la aasaasay Soomaaliland wax ka yar ma aaminsanin soo taabalnateenu maaha soo inaan nabadda ilaalina maaha soo inaan xisbiga u shaqeyna maaha soo wada jirka iyo midnimada Soomaaliland inaan ilaalina maaha midnimada gobolka awdal inaan soo celina soo maaha ee xaafadda loo kala fadhiisiyay walaalayaal musharaxa madaxweyne Faysal Cali Waraabe wuxuu la tartamay madaxweynihii xariirta ahaa ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo madaxweynihii ka sii horeeyay Daahir Yaale Kaahin intaaba ma ogeydeen qabyaalad miyaad ogeydeen qabyaalad yaa soo celiyay kulmiya inagu soo celiyay kulmiyana cadcadiisi way dhacday insha Allah ta'ala way galbatay faatixada horta loo maro kulmiye bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويتك كلمية وعد أقول ليستو Somaliland اعتراف هايشو قرن مدني هوارتو علنك التوحيد كو هوارو عدو Somaliland هدعو كو النبض كسور جدا هدعان كو أي هرقيسة وجوكتا هدعان موسى مؤاوي وكداية سوماها سيلعنا تضبطي هورو كتاك سوماها يقنا فاتحة أمرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قول بإني رجينا